asalaamu calaykum wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka maanta aan idiin soo diyaariyey youtube-ka aad daawanaysid mojarana weeye anigana magacayga maxamuud weeye haddaad ku cusub tahay channelka wala subscribe oo nagu soo biir kambalkana saaro si marka waxa aan soo gelino ay notification ahaan kugu soo dhacaan adigana markaas aad si clear ah oo raaxa leh aada ugu daawato si aan lagaga hordaawan barnaamijkan maanta waxaan kusoo qaadanaa shirkadda teknolojiyadda ee apple oo soo saartay telefoon casri ah oo la yihahdo iphone 11 oo leh ilaa 3 qaybood saddexdaa qaybood oo telefoonka u kala baxay waxaa la iphone 11 iyo iphone 11 pro iyo iphone 11 pro max saddexdan telefoon waxaa la rajeynayaa shirkadda inay soo saarto bishatan hadda aanu ku jirna ee September 10keeda ilaa 20keeda inta u dhaxaysa laakiin dadku waxay leeyihiin waxay soo baxaysaa shirkaddu waxay soo publish gareynaysaa 20ka laakiin waxaa la qiyaasay inay 20ka 22ka intaas inay gaari doonto su-aasha meesha taala ayaa waxay tahay shirkadda sanadkan ugu dambeeyay ee 2019ka aan ku jirno shirkaddu waxay soo saartaa telefoon aad u badan haddana oo aad u casri ah oo haddana aad isku wada mid u ah wax saas aan ku kala duwanayn laakiin qiimahana kala hay kala ah oo aad u kala duwan su-aasha meesha taala waxay imaanaysaa marka telefoonkan hadda shirkadda ay soo saartay muxuu uga duwan yahay telefoonadii hore ay soo saartay shirkadda sida telefoonka ugu dambeeyay ee iphone xs max telefoonkaas waa very nice waa telefoonka ugu dambeeyay ee shirkadda ay soo saarto muxuu uga duwanaan doonaa telefoonkaas muxuu uga duwanaan doonaa telefoonadii ugu dambeeyay sida iphone 8ka iyo iphone 10ka oo iphone x ka ah muxuu uga duwanaan doonaa telefoonkan cusub oo shirkadda ay soo wado leeyahay iphone 11 haddii aan ku bilowno telefoonka iphone 11 waa telefoon leh 3 kaamirood ayuu ku leeyahay gadaal saddexdaas kaamiroodna waxaa weeye 3 kaamirood oo fox leh haddii maybe aad u baahan tahay inaad meel wax kasoo zoom garayso markaa zoom tiraado telefoonka waxaa isbedelaya sawirka kbx isbedelaya shucaac baa galaya laakiin telefoonkan waxay leeyihiin anagu weli maanaan arag laakiin waxayna leeyihiin telefoonkan haddii aad soo zoom garaysid isma bedelayo waxaa soo zoom garaysid in aad la taagan tahay oo kale ayuu sawiraya maadaama uu 3 kaamirood leeyahay saddexda kaamiroodna shaqooyinkooda ay si waxa weeye wanaagsan ay u qaban doonaan telefoonkan wuxuu soo shabaha xagga qaabka iphone xr telefoon la yiraahdo oo iphone-ka haddii aan guda galno barnaamijkan telefoonkan iphone 11 ka la yiraahdo 4GB ram weeye ramkiisa kaamirada hore waa 12 weeye telefoonkan baterigiisu waa 3110 mAh waa telefoonka bateriga intuu haynaya macali waa telefoon baterigiisu fiican yahay ka wadaan 3D touch waaye telefoonkan storage-kiisa wuxuu ka bilaabanaya 64 ilaa 512GB waaye 128 wuu leeyahay laakiin 64 buu ka bilaabanaya wifi-giisa waa 6 haddii aan u guda galno next telefoonka ku xiga waa iphone 11 pro waaye telefoonkan la yiraahdo iphone 11 pro wuxuu soo shabahaa telefoonka la yiraahdo iphone xs ayuu soo shabahaa face id wuu leeyahay 3D touch waaye kaamirada hore waa 12 MB weeye wifi-giisa waa 6 storage-kiisa wuxuu ka bilaabanayaa 128 ilaa wuxuu ku egyahay 512GB waa half terabyte caadiya ayuu iska buuxsamay telefoonkan caadi weeye baterigiisa waa 3190 mAh waaye 4GB ram waaye USB-C charger waaye macnaha telefoonka iphone x ka iyo charger leeyahay iphone 8 ka isku charger waaye iphone-ka ku sii xiga oo next-ga waxa weeye iphone 11 pro max waa telefoonka ugu dambeeyay shirkadda ay leedahay waa soo saaraya waa telefoon khatar ah waxa weeye telefoonka anagu waxa weeye umalmay inaan gadanayno waa telefoon danger ade waxay ku leeyihiin telefoonkan wuxuu u egyahay iphone xs max ku soo egyahay alla yani shape-kiisa waxa umalmay waa 6.5 inches waaye 3D touch wuu leeyahay telefoonkan waa 6GB ram weeye baterigiisa mAh-kiisa waxa weeye 3500 weeye wuxuu xagga size-ka iyo shape-ka soo shabihi doonaa telefoonka leeyahay iphone 11 pro ayuu soo shabahaya waa telefoonkii aan waxa weeye ka hor soo sharaxay qaybta hore USB charger-kiisa waxa weeye USB-C charger-kiisa waxa waaye waa iphone x ka ayuu la charger yahay iyo iphone 8 ka ayuu isku charger waaye barnaamijkan intaas ayuu ku egyahay shirkadda telefoonkan ay soo saarayso waxay la tahay dad badan ayaa ka faa'iidi doona barnaamijka hala sii share gareeyo videogan hadda aan soo duubnay waa videoga ugu horeeyay aan soo gelinay YouTube channelkan
waxaan rajeynayaa inaad ka bogateen wax badan aad ka faa'iideen. waxaan kaa codsanaynaa inaad sii share garayso, subscribe aad sii saarto. waxaan kaloo kaa codsanay inaad kambalelka saarato, because of haddii aad kambalelka saarato waxa aan soo gelino as notification ahaan ayay kugu soo dhici doonaan. qofka ugu horeeya daawataa noqon doonta, aniguna waan kusoo meeshan garayn doona. barnaamijka intaas ayuu ku egyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.